السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان walaalahayga Soomaaliyeed isku soo noqod wacan oo xiisa leh meel walba aad dunida ka joogtaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinku xifdiyo ma isweydiinaysaa sababta dadka aamusan ay u guulaystaan dabcan haa mid ka mid ah aragtiyada cilmi nafsiga ee aadanaha ayaa u kala qaybisay ama u kala qaybiyay bini'aadamka laba nooc dabciga qofka ama dabeecadiisa si loo ogaado halka ay tamarta ama enerjiga ka helayaan mid ka mid ah wuxuu ka helayaa ama bini'aadamka qaar ka mid a waxay ka helayaan enerjigooda ama tamartooda dibadda iyo bulshada si uu waqti ula qaato waxaa lagu magacaabaa qof bashaash ah oo furfuran halka midka kalena uu tamartiisa iyo enerjigiisa ka helayo inuu naftiisa waqti la qaato waxaana lagu magacaabaa qof afgaaban oo keli socod ah marka sideebay dadka furfuran iyo dadka afgaaban ay ula falgeli karaan guusha yacni guul dabcan qofkaana waa qof furfuran oo bashaasha qofkaana waa qof aamusan qaab nooceeye labadoodaba ku kala guulaysan karaan qaar ka mid ah sifooyinka qofka guulaysta ayaa inta badan lala xiriiriyaa inuu yahay qof furfuran oo bashaash ah gaar ahaan fiildiyada u baahan fagaara ka hadalka iyo isku xiriirinta si kastaba ha ahaatee dadka ugu guulaha badan uguna saamaynta badan adduunka ayaa ah kuwa afgaaban oo aan hadal badnayn waxaa jira dad badan oo aamusan oo guulaystay sida Bill Gates, Mark Zuckerberg iyo Albert Einstein raggaas aan wada ogsoonahay kuwa ka mid ah mar hore ayay dhinteen haddana saasay tahay raadkooda iyo waxqabadkooda ilaa hadda ayaan isticmaalaynaa sida Albert waxayna ahaayeen dad afgaaban marka waatan sababta dadka aamusan ay u guulaystaan kow waxay leeyihiin qorshayaal aad u weyn dadka aamusan waxay u baahan yihiin badanaa waqti dheeraad ah si ay u fuliyaan macluumaadka maskaxdooda ku jira taasina waa sababta aysan wax badan u hadlin awoodda ay uga fikirayaan howlahooda ayaa u saamaxaysa inay noqdaan kuwo qorshayaal waaweyn leh waxayna khadidayaan ama dejinayaan hannaan qorshayaal umana arkaan sabab ay wax badan u hadlaan haddii aan loo baahnayn haddii aad rabtid inaad fildi kasta ama meel kasta ku guulaysatid waxaad u baahan tahay qorshe cad keliyana kuma saacidaya ilaa aad fulintiisa aad ku dartid tanina waxay u baahan tahay fikir badan mana ahan mid ku fulaysa ama ku qabsoomaysa in la hadla un labo waa dhegaystayaal wanaagsan dadka aamusan waa guulaystaan iyagoo aanan raadinaynin waddada ugu fudud dabcan bini'aadan ayaanu nahay qof walba wuxuu raadinayaa waddada ugu fudud uu ku guulaysan lahaa laakiin qofku ma ahan inuu markiiba noqonayo guulayste wuxuu u baahan yahay waano badan iyo waxsheeg iyo horumar badan si uu ugu dambayn ugu guulaysto raadinta guushaas si loo helo talo wanaagsan qofku wuxuu u baahan yahay inuu noqdo dhagaysto wanaagsan tani macnaheedu ma aha in dadka jecel inay in badan hadlaan aysan ahayn dhagaystayaal wanaagsan ee ay tahay dadka aamusan inay siiyaan hadalka dadka kale marka hore si ay u helaan jawaab celin badan ayna ugu guulaystaan dabcan markii aad fadhidid shirkaasna aad noqotid qofka ugu dambeeya oo hadla waxaa xaqiiq ah inaad helaysid nuxurka hadalka iyo boyntigiisa saddex waa dad hal abuur leh dadka aamusan waxay door bidaan inay waqti badan la qaataan naftooda iyo maskaxdooda beddelkii ay dadka la hadli lahaayeen inta ay ku guda jiraan waqti la qaadashada naftooda waxay hal abuuraan fikrado waxay ku xiraan aragtiyo taasoo dhalinaysa shaqo miro dhal leh hal abuurnimadu waa u muhiim inaad ku maarayso ganacsigaada waa laga yaabaa maanta inaad qof dhalinyaro ah tahay laakiin qorshahaaga mustaqbaladeed uu ku jiro inaad ganacsato noqotid waxayna kaa caawinaysaa fikradahaadaas iyo hal abuurnimada iyo aragtidaadaas inay macaamiishu mar walba macaamiishaada ganacsado marka aad tahay macaamiishu mar walba waxay rabaan ama door bidaan waxyaalo kala duwan sababta dadka aamusan qaarkood ay ugu guulaystaan ayaa ah inay hal abuurkooda u adeegsadaan abuurista iyo kobcinta ganacsigooda dadka noocan ahna waa dadka badanaa kor u dhaafa qayrkood lana yimaada fikrado aan caadi ahayn ama cusub kana yaabin doona
asaagood. 4 si taxaddar leh ayay u doortaan hadalkooda. Haddii aad rabto inaad guulaysato laakiin aad ka baqayso dadka inay kugu xukumaan inaad tahay qof aamusan, waxaa jira dad badan oo kale oo jecel aamusnaanta. Ma ahan in cilaaqad wanaagsan lala sameeyo ama ay gaar u tahay uun kuwa jecel inay hadlaan. Dadka aamusan waxay u muuqdaan ama u janjeeraan inay ka hadal yar yihiin dadka kale, laakiin mar haddii ay hadlaan waa dad hadal cad. Waxay u hadlaan si taxaddar leh, miisaan iyo ka fiirsi iyo aragti dheer ku jirto, xeeladaysan. Erey walba waxay dhigaan meesha ku habboon. Dadka ku xeel dheer dadka dabeecadahooda waxay u doortaan dadkan jagaba jagaday ka sarrayso si ay si dhammaystiran ugu buuxiyaan. Qofka aamusan wuxuu waqti badan ku bixiyaa inuu go'aansado wuxuu dhihi lahaa iyo wuxuusan oran lahayn. 5 waxay haystaan xifdistaan keliya dadka wanaagsan. Dadka afka gaaban aad ayay ugu nasiib badan yihiin inay doortaan dadkay isku hareerayn lahaayeen. Maadaama ay yihiin dad aamusan, waxay u fudud inay helaan qofba qofka ka wanaagsan ayay ugaarsadaan oo ay helaan. Waxba kama qabaan inay haystaan saaxiibo yar iyo dad la aamini karo, laakiin way og yihiin in intaas yar oo saaxiibada ah ay uga qiimo badan yihiin, ayna uga kalsooni badan yihiin maalinta ay rabaan inay helaan. Kalsooni dhab ah ayay ku qabaan dadkaas ay xusheen inay heli karaan maalinta ay baahi u qabaan. Dadka aamusan waxay door bidaan tayada ee tirada uma muuqato. 6 waxay garanayaan mudnaantooda. Waxaa xaqiiq ah inay dadka aamusan leeyihiin sifo walba oo wanaagsan. Inkastoo ay bini'aadan yihiin, haddana waxaa ku duugan xikmad badan. Waxaa laga yaabaa inay dadku isleeyihiin dadka aamusan ma ahan dad shidan xafladaha iyo meelaha la iskugu yimaado, laakiin waxaa xaqiiqo ah inay garanayaan mudnaantooda, waana sababta ay u guulaystaan qaar ka mid ah dadka aamusan. Waxayna garanayaan halka ay taagan yihiin iyo sababtay u taagan yihiin, ee wax walba iskama dhex dabaashaan. Dadaal joogto ah iyo mudnaanta saxda ah waxay u badan tahay inaad ku xaqiijiso guulooyin waaweyn. 7 waa dad leh naf ogaal. Sababta kale ee dadka aamusan ay u guulaystaan ayaa ah inay og yihiin kartidooda iyo dhaliishooda. Waxay og yihiin inay bilow walba, wax walba oo la bilaabo aan laga bilaabin meesha ugu sarraysa iyo natiijada, laakiin ay doontaan waxyaalo ay ku horumarinayaan naftooda ayna ku buuxinayaan gaabka ciladahooda. Naf ogaalku ma ahan in lagu khaldo inaadan ahayn qof naftiisa aan ka warqabin, ee in aad iska warqabto waxay la macno tahay inay og yihiin inay wax ka maqan yihiin, laakiin halkii ay ka qaylin lahaayeen waxay raadinayaan xal si ay sida ugu wanaagsan uga faa'iidaystaan ciladahooda. 8 waxay leeyihiin isxakamayn wanaagsan. Sidaan hore usoo sheegnay, dadka aamusan waxay leeyihiin naf xakamayn wanaagsan. Waa dad naftooda kontrooli kara, inay ka warqabaan naf ogaalkooda, ayna diiradda saaraan hal shay. Waxay la macno tahay in ay naftooda ku mashquulinin wax aan iyaga faa'iido u lahayn. Dadka aamusan qaarkood ayaa guulaysta sababtoo ah waxay garanayaan waxa ay tahay inay sameeyaan iyo waxa ay tahay inaysan samaynin. Waxay diiradda saaraan wax soo saarkooda ayay diiradda saaraan halkii ay ku mashquuli lahaayeen raaligelinta dadka kale. Gunaanad, ku aamusnaanta adduunka qaylada dheer waxay noqon kartaa mid adag, laakiin marka dadka aamusan ogaadaan qiimahooda, dunida way isku bedeli doontaa siday iyagu rabaan. Muhiimaddu waa in la ogaado lagana faa'iidaysto sifooyinkaas. Dadka aamusan waxayna leeyihiin sifooyin badan sida kuwa aan kor ku soo xusnay. Taasina waxay kaa caawin doontaa inaad guulaysatid, awooddaadana in aad si qoto dheer uga fikirtid, aadna ogaatid goorta aad u baahan tahay inaad hadasho iyo meesha ay tahay inaad raadkaaga dhigto. Waxaan idinka tegayaa dhammaantiin fi amaanillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.